xaqiiqdii way adkaan doontaa in la ilaabo. La Rojo waxay qaaday goob sharafeed kasta oo caalami ah oo suurtagal ah intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2012 iyadoo xukuntay kubadda cagta caalamka 4 sano iyo wixii ka dambeeyay. tababarahooda muddadaasi iyo saamaynta falsafadooda kubadda cagta ee tiki-takada waxa uu ahaa Vicente Del Bosque. muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa xaqiiqooyinka dahsoon oo ku saabsan xulka Spain iyo xiriirkii uu la lahaa Lionel Messi. in waqti ay suurtoobi gaartay in Lionel Messi uu xirto fanaanada gaduudan ee xulka Spain iyo sababihii kalifay in xidigan uu iska diido xulkaasi iyo sidoo kale in xiriir ay u soo bandhigeen xulka Talyaaniga iyo wadamo kale oo Yurub ah si Lionel Messi uu ugu ciyaaro. kadib markii uu maamulay Real Madrid halka uu u soo saftay isagoo ciyaaryahana 445 kulan sidoo kale ahaana ciyaaryahan qadka dhaxoo daafaca ka ciyaara intii u dhaxaysay 68 ilaa 84 iyo basigtaas oo uu soo ciyaaray kadib Del Bosque bishii Luulyo 2008 waxaa loo magacaabay xulka Spain. waxay muujisay talaabo geesinimo leh oo saameyn doonta ama jebin doonta isaga iyo sumcadda waddankiisa. nasiib wanaag labada dhinacba Del Bosque ayaa ku guuleystay isagoo qaatay horyaalnimada Yurub iyo koobkii adduunyada ee South Africa 2010 ka hor intuusan ilaalin koobkiisa Yurub ee 2012. laakiin waa wax aan rumaysan karin ka hor Del Bosque xiriirka kubadda cagta Spain waxay sameeyeen wax kasta oo dadaal ah si ay ugu qanciyaan Lionel Messi inuu matalo xulkooda Spain. sanadii 2003 Argentina ayaa u soo baxday semifinalka tartanka World Cup Under 17 ee Finland lagu qabtay. koox cajiib ahayd oo ay hogaaminayeen Biglia iyo Iscual Caraya ayaa si kastaba ha noqotee waxay gaareen wareegga semifinalka intii aysan kulumin gacantiisa Fabregas ee España. toddobaad ka hor intuusan u ambabixin ciyaarta ayuu tababaraha Argentina helay war ku saabsan ilmo yar oo ka ciyaara Spain. waxaana uu u dhiibay kaaliyihiisa muuqaal. waxaa suurtagalay in qolka labiska uu ku daawado 4 daqiiqo oo keliya si uu u arko tayada Lionel Messi. laakiin waxaa isbuuc uga dhindeed oo keliya inay u ambabaxaan Finland. waxaa isbuuc inooga dhindeed inaynu u ambabaxno Finland. ma jirin wax aan samayn karno ayuu yiri Tuchel maamulihii hore ee Under 17 ee Argentina intii lagu jiray waraysi uu siiyay TCY. macalinkan ayaa markii xulkiisa ay soo hareen isla markiiba shaqaalihiisa iyo xiriirka kubadda cagta ee Argentina waxa uu u xil saaray raadinta Lionel Messi. tani waxay ahayd 2003 wax walbana waxay ahaayeen iskuul gaboobay. kadib markii ay soo baareen diiwaanka taleefanada oo ay ku guuldareysteen inay helaan magaca ama qof xiriir la leh Leo ayaa lagu qasbanaaday in loo yeero qof walba oo ka socda Rosario Central oo leh magaca Messi. kadib wicitaano dhowr ah waxaa la helay ayayada Messi oo markaas siisay lambarkiisa Barcelona. taleefankii ayaa habeen saqdhaca ka dhacay magaalada Barcelona. waad salaamantihiin waxaan nahay xiriirka kubadda cagta ee Argentina. waxaan jeclaan lahayn in wiilkiina Lionel Messi uu ku soo biiro kooxdeena qaranka. aabbaha Lionel Messi oo wicitaanka helay ayaa sidaa lagu yiri. waxa uu ahaa isaga war farxad leh maadaama si aada ay wiilkiisa u raadinayeen Spain. macallin Tuchel ayaa markaa wacay madaxweynaha IFA-ga ee xilligaasi Julia Grandona. saxiixa ciyaartoy da'yar oo xulka ahi had iyo jeer ma ahan wax fudud oo waa inay u muuqataa mid dhaba. wafdi ayaa loo diray si loogu soo qanciyo Messi in loo tixgeliyo in si dhaba uu Argentina ugu biiro. Argentina waxay ahayd inay la timaado ciyaaro saaxiibtinimo oo Under 20 ah waxaana fax loo diray Barcelona si loogu yeero Lionel Messi. laakiin faxiska ayaa lagu qoray Leo Messi. Barcelona ayaa saxday IFA-ga waxayna sheegtay in Messi uu yahay inuu ciyaaro kulan Copa del Rey ah oo ka mid ah ciyaartoyda dhalinyarada ee Barcelona. Argentina ayaa lagu qasbay inay dalab u gudbiso ugu dambeyn Barcelona ayaana u ogolaatay Messi inuu safro. si Spain loo ogeysiiyo in Messi uu yahay xulkooda Argentina ayaa ka dhigtay sidoo kale 2 ciyaar oo saaxiibtinimo oo muhiim ah inay ciyaaraan. sidoo kalena ciyaarahaasi looga yeeray karsoore caalamiga gaar ahaan Gabriel Brazanis iyagoo ka dalbanaya inuu keeno warqadaha FIFA si ay u qoraan macluumaadka ciyaarta. taasi waxay la yaab ku ahayd referee-ga maxaa yeelay maadaama la og yahay in ciyaar saaxiibtinimo inta badan aysan jirin warqado la diiwaangeliyo. daqiiqadii 8aad ee ciyaartii saaxiibtinimo ee hore Leo ayaa helay kubad wuxuuna dhammaan daafacyada ku ururiyay goosha intuusan shabaqa soo taaban. ciyaartii koowaad oo uu si rasmi ah u noqdo laacibka reer Argentina
kadib 3 gool oo uu ka dhaliyay labadaasi kulan iyo 11 gool oo uu u dhaliyay ciyaartoyda 16 sano jirada waxaa loo dalacsiiyay kooxda 20 sano jirada Messi. Markii aan yaraa waxaan mar uun filayay in taleefankayga ay heli doonaan IFA-ga waa xiriirka kubadda cagta ee Argentina ayuu yiri Messi kuna qoray buugiisa Messi de Patriot. Inaan doonayay inaan u ciyaaro xulkayga ayaa ahayd mid weyn maxaa yeelay waan jeclahay Argentina. Kuwani waa midabyada kaliya ee aan doonayay in aan xirto. Waxaan had iyo jeer ahaa taageere aad u jecel xulka qaranka. Ciyaaraha waxaan ka daawan jiray telefishinada maxaa yeelay weligay ma tagi karin garoon. Waxaan u daawan karay anigoo taageere ah ayuu sidoo kale sii yiri Lionel Messi. Dalebasku ayaa dhankiisa waraysigu haddaba dhawaan baxshay waxa uu ku qirtay inay sameeyeen dadaal kaste isagoo ku andacooday in Lionel Messi uu isagu ahaa mid iyaga iska diiday. isagu xaq ayuu u lahaa inuu Spain u saxiixa markuu 13 sano jir ahaa laakiin Leo wuu diiday sababtoo ah wuxuu jecel yahay wadankiisa. imaatinkiisa waxa uu ahaa sida ugu fiican. Messi waa Messi mid kaliya ayaa jira. riya ayay noqon lahayd inaan isaga hogaamiyo ayuu sidoo kale yiri. dhinaca kale warar kale ayaa iyaguna sheegaya in xulka qaranka Talyaanigu ay sidoo kale ku dhawaadeen in mar ay xulkooda ku daraan ciyaaryahan Lionel Messi. sida iska cad Leo Andres Lionel Messi aabihiisa waxa uu ku dhashay magaalada Suseto ee wadanka Talyaaniga. haddaba awowgiisa oo Talyaani ahaan aha ayaa sabab u noqon karaya midan. Messi runtii wuu u qalmi lahaa baasaboor Talyaaniya isagoo sii maraya awowgiisa weyn ka oo ka soo guuray Resanati markii uu wareegay magaalada Rosario 1883. ma jiraan wax rikoor ah oo sheegaya in xiriirka kubadda cagta Talyaanigu uu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo Messi intii ugu yaraa inuu u hibeeyo xulkooda. si kastaba ha noqotee iyadoo labada xul ee Argentina iyo Spain ay isku riixayaan adeegiisa weligood maysan jirin kaarar la diiwaangeliyo oo ku saabsan in Talyaanigu ay mar isku dayeen. laakiin marka la fiiriyo taariikh ahaan Talyaaniga iyo Argentina waxaa dhex maray ciyaartoy tiro badan. ciyaaryahanka lagu magacaabo Ramando Osli oo ku guuleystay 5 horyaal oo Serie A intii u dhaxaysay 1930 ilaa 35 ayaa u qalmay inuu matalo labada dal wuxuuna u saftay labaduba. Orsi wuxuu u ciyaaray Argentina intii u dhaxaysay 24 ilaa 28 ka hor intuusan bedelin xulafadiisa 6 sano uusan ku qaadan Azzurri oo uusan kula guuleysan koob adduun. xitaa wuxuu ku soo laabtay waajibaadka Argentina kulan 1936. Dani Osvaldo oo hore uu ahaa ciyaaryahan Roma, Juventus, Inter u ciyaaray ayaa sidoo kale 14 kulan u saftay kooxda waaweyn ee Talyaaniga laakiin wuxuu ku dhashay Lanús oo Argentina ka tirsan. Omar Sivori, Humberto Maschisio iyo Antonio Angelino oo lagu naanayso dhammaantood malaa'igta wejiga wasaqda leh waxay u wada ciyaareen Argentina iyo Talyaaniga. labaduba si la mid ah Luis Monti oo isna hore ugu soo ciyaaray Juventus. xidiga haatan ee Juventus Paulo Dybala ayaa sidoo kale xaq u lahaa inuu u ciyaaro labada xul ee Talyaaniga Argentina iyo sidoo kale Poland laakiin waxa uu doortay inuu u hibeeyo xulkiisa qaranka ee Argentina.